بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. الله سبحانه وتعالى يا مهدسك له عافيمات كنسية إنه قلنا معين كيس فراب ظله. الله سبحانه وتعالى هاي نسية بشن بركيسن خير كده إن شاء الله. موضوعنا ما توحوي موضوع ركوبا أو دليرتا أنصو ديارني دليرتا إن شاء الله يمكن هددونا. الموضوع ما أنت وحين كسوي حقن دونا إن شاء الله كتابكم مشكلات الشباب إن شاء الله تعالى. سيدنا كسونا هاي دليرتا وقيبته وبدن بلشدة زمن كان ضبي 70 وحي كسرية بلشدة ميل خدقاني ودليرتا وبدن وين كسونا هاي هرماركا iyo qaybta ay ku leeyihiin bulshada dhalinyartu. Hadda waxay isla soo qaadan doonaa 3 nooc oo dhalinyartaas. Kulay dhalinyartu waynu ogsoonahay dhalinyarta meel ku dhaqani 3 nooc bay noqon karaan. Qodobka koobaad oo ah dhalinyar toosan oo xaqa ku toosan. Dhalinyarta waxaynu ku cabiri doonaa insha Allah dhalinyarteena shabaabka islaamka ama dhalinyarteena Soomaaliyeed 3 nooc bay kala noqon karaan. Koow waa dhalinyar toosan, 2 waa dhalinyar leexsan, 3 waa dhalinyar labadooda u dhaxayso oo jahwareersan oo meel ay tagaan garan. 3dan oo weey sidoo ogsoonahay haddii aad aragtid shay toosan waxa ka soo horjeeday shay qalloocsan oo opposite-kiisu muxuu noqonayaa shay qalloocsan. haddii la arko dhalinyar wanaagsan dhalinyar fawda ah ayaa ka soo horjeedaysa hadii shay oo iyagana dhinac kale hawsha ka wada. dhalinyarna oo dhalinyar aan warhayn oo labadoodaas u dhaxay jahwareersan ka yaraacana garala. haddii saynu u fahanno balka koobaad haynu qeexno dhalinyarta toosan waa kuwa awaamirta Allah subhanahu wa ta'ala qaadanaysa bulshadooda anfacaysa wixii ay hayaan iyo waxyaabihii ay ku dhaamaan bulshadu soo gudbinaya. waa kuwa xaqi ilaahayna gudaya xaqi bulshadana gudanayo oo bulshadana waxay ku dhaamaan siinaya xaqi ilaahay farayna ka soo baxay. waa kuwa salaadaha iyo dikriga iyo sakada iyo sadaqada iyo had iyo jeer u kala bartamaya ee bixinaya wixii taakuleyn ah bulshada taakuleynay. kuwa way dhalinyarta toosan. nooca labaad oo ah dhalinyar leexsan. dhalinyar leexsan maxaynu oran karnaa? waa dhalinyar intaas aanu sheegay ka soo jeedkii oo sheeg. waa dhalinyar xaq iska daa ilaahay xaqi bulshadii iyo wixii ku lahaayeen gudayn. waa dhalinyar wareersan oo nan maxaynay xaq ay ku leeyihiin waalidka iyo bulshadu baanan aqoon xaqi Allah subhanahu wa ta'ala aqoon. waa dhalinyar had iyo jeer xaga foodo u badan oo had iyo jeer dhinaca kala ka shaqeysa xaqi wanaagga ka soo jeedka ka shaqeeya. dhalinyarta leexsan oo kuwaas ilaahay naga madhigo ilaahayna subhanahu wa ta'ala hay naga ilaaliyo dhalinyar leexsan. inuu dhalinyarnimaduna waa shay qaali ah weeyaan diinteenu ka hadashay. ilaahay naga dhigo kuwa hore. dhalinyarta saddexaad waa kuwa waxa weeyaan ku jahwareersan. waa dhalinyar runtii xaq iska garanaysa laakiin waxba ka qabanay. waa dhalinyar waxa weeye xaqii soo marana xaqiisa sidii loo dhaqmayaan khayr sharkii soo marana sharkiisa sidii loo dhaqmayaan oo iyagu ma bayna weeyaan oo kuwa horana lug bay kula jiraan kuwan kale lug bay kula jiraan mararka qaarna labadooda isku dhex wareeraan waxay garan waayaan keebaa sax iyo keebaa khaldan. ugama dallihi inaan maanta oo dhan 3 qodob ku celiyo hal shay ayaan u soo diyaariyay mawduucan. halka shay waxa weeye dhalinyarteena Soomaalidu halkaynu eegno bal 3 nooc ee loo kala qaybiyo dhalinyarta keebeen ku jirnaa ma kuwa wanaagsan ee ma sha Allah ilaahay u siyaadiyay toosan ma kuwa leexday ilaahay naga madhiga ee fadaroobay mise kuwan kale ee jahwareersan ee meel u dhaqaaqan karan la marna xaqi soo mar xaqiisa loo dhaqmaya khayr sharki soo marna shirkiisa loo dhaqmaya. anigu waxaan fikir ahaanteeda oran lahaa dhalintan anigu ka mid ka ahay Soomaaliyeed waxa loo badan yahay ka saddexaad qodobka saddexaad sababo badan ogeey. waynu ku yar yihiin dhalinyar khayrka ka shaqeysa oo dawlad isku wada ogsoon yahay hadda ma sha Allah waxa soo ifaya mustaqbal fiican dhalinyartii isbedel ka yarayso oo soo wanaagsanaaneeso sala rajeenay. dhalinyar fawda ahna waynu garanaynaa in waxba ka hadli mayno waynu ku badan yihiin
laakiin haddana markaanu saddexdaa nooc u kala saarno aniga fikir ahaantii wuxuu dhahaa dhalinyarta waxay nagu badan jahwareersan. dadkeenu waa dhalinyarteenu waa dhalinyar inta foodo ka shaqeysa inta khayrna khayr ka shaqeyso, laakiin waxaa loo badan waa dhalinyar iska degan, wixii soo marana sound u haysata, wixii khayr soo marana khayrku waa kula dhaqanta, wixii shar soo marana sharku waa kula dhaqanta. waxaa taasi ku cadaynaya dhowr tusaale oon aan sameeyey, dhowr tusaale oon anugu aan hayo. waxa weeye waxaa jira qofku marka uu gafku dhaco, iminka dhowr dhalinyartu had iyo jeer meelaha waxay isku yimaadaan wax lagu cunto iyo meelaha kale la fadhiisto iyo la iskaga wada garanaya. haddii meesha la wada jooga kasoo qaad in 5 dhalinyar ah 6 dhalinyar ah meesha wada fadhido, mid ka mid ah wuxuu ku jiraa booska labaad oo dhalinyar leexsan ah oo dee wixii diintina war kama hayo, bulshadiina war kama hayo. markaa mar buu aflagaado u geysanayaa diinta. waa soo tijaabi anuuna soo tijaabiyey, diinta ayuu aflagaado u geysanaya. meesha maxaa lagu fadhiyaa waa 5 iyo 6 iyo wax 7 ka badan. way yar tahay ka odhanaya niyo diintaasi ka joog waxaas waa xaaraani oo ma wax ku sheegay. waa khayrkii soo marana wuu qaadanayaa oo salaadihii waa kaas ka tukanaya. dhalinyartuna saa weeyaan dad iska cibaadaysto maasha Allah, sharka soo marana waxba kama qaban karaan. oo haddii uu kaasi maanta sida diintu aflagaaday haddii joogso dhoorna uu joogsanahay, laakiin dhalinyarta intaa la fadhida 5 meesha ku wada casheynayaan ama meesha ku wada roodeynayaan waa la qoslayaa. marka inta badan way iska dhaafayaan waxaan weydiinaya taabi u badan dhalinyarteedu. tijaabooyin kale way jiraan aad soo heli kartid dhalinyarteenu in u badan yihiin qodobka saddexaad oo waa dhalinyarka salaadahooga iyo cibaadadooda iska wata, waxba khayrkana khayrkiiga ka wata, sharkana waxba ka qaban karin. waa dhalinyarta jahwareersan. de marka uu ilaahay naga dhigo dhalinyarta koobaad, marka uu iimaanku uu qalbiga si fiican u dugo khayr badan baad ka shaqeynaysaa. kaasi iminka hawsha wada ayaad ku odhanaysaa war hawshan jooji, wixii bulshada u faa'iideynaysa. waxaan ku dardaarmi lahaa haddaba dhalinyarteenu bal inaynu insha allahu tacaala isbedel fiican sameyno oo bulshada horumarkeega ka shaqeyno. Allah subxaanahu watacaala waxaan ka rajeynayaa inuu dhalinyarteenu toosiyo oo anagu ka mid kahay. waxaan odhan lahaa kolley dhalinyartu waa xoogga bulshada, waana dadka beri bulshada hogaamin doona, iyagunba beri hogaamin doona. hadday iyagu wanaagsanaadaan bulshaduna wanaagsanaanaysaa. waxaan odhan lahaa dhalinyartu ha is wanaajiso oo khayrka u kala badiso insha Allah. mawduuca intaa baan ugu talagalay inaan maxayna bulshada iyo dhalinyarta asxaabta inta daawanaysa iyo inta kale ay daawan doonto insha Allah usoo gudbiyo. inaan sii dheereeyo ma rabo. Allah subxaanahu watacaala waxaan ka rajeynayaa inuu ramadaanta khayr noogu dhameeyo, intaa inoo dhamaatay inta noo hadhan ilaahayna gaadhsiiyo subxaanahu watacaala. intaa baynu mawduuceena kusoo koobinay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.